ilaa iyo 5 doomood oo nooca dagaalka oo la rumaysan yahay in ay wateen ciidamada ilaalada kacaanka ee Iiraan ayaa rasaas digniin ah lagu furay kadib markii ay u soo dhawaadeen markab booyad shidaal ah oo dalkaasi Britain laga lahaa kaasi oo marayay biyaha gacanka Carbeed. markabkan dagaalka oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Britain ayaa waxa la sheegay in uu doonyahaasi dib u waabiyay kadib markii uu ku furay rasaas digniin ah taasi oo sababtay in doonyahaasi Iiraan ay dib u gurtaan. sarkaal Mareykan ah oo goobjoog u ahaa dhacdadaasi oo la hadlay wakaalada wararka ee Reuters ayaa waxa uu sheegay in markabka shidaalka ee Britain marayay dhinaca waqooyi ee laga soo galo gacanka Hormuz xilli ay doonyaha Iiraan ay isku tijaabiyeen in ay qafaashaan. dhinaca kale madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaani waxa uu horay ugu hanjabay in Britain ay cawaaqib xumo ay kala kulmi doonto markabkii Iiraan ee ay isbuuc hore ka qabteen badda caalamiga ah ee u dhow dalka Spain.